السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa kusoo dhawaataan tusmada shanaad ee barashada Photoshopka. Dabcan markii ugu dambeysay waxaan ku dhex jirnay toolska Photoshopka ee leedahay. Waxaan ka soo qaadanay qayb fara badan oo kamid ah toolskaasito. Sidoo kale waxaan had iyo jeer ku celiyaa in ay muhiim tahay toolska Photoshopka leedahay. Waayo sababtoo ah toolska Photoshopka waa fahantaa waxay ka saacidaysaa design-kaaga inuu noqdo design aad iyo aad u qurux badan oo aad ku soo saarto had iyo jeer design-ka aad rabto Photoshopka. Marka haatan tusmadan waxaan doonayaa inaan ku qaadano frame tool, eyedropper tool and healing brush tool. Ugu horreyn waxaan ku hormaraynaa frame tool. marka panel-kan waxaa igu jiro layer tool. dabcan this layer wuxuu ka kooban yahay background layer iyo sidoo kale folder-kanito oo igu kaydsan sawirada aan cashirkan haatan aan doonayo inaan ku sameeyo. marka waxaan ku hormaraynaa frame tool. frame tool dabcan waa tool loogu talagalay in sawirka lagu yaro. tusaale ahaan haddii aad doonayso sawirkaaga inuu kooban noqdo kale ama aad doonayso sawirkaaga afar gees oo kale inaad ka dhigto, aad sidoo kale doonayso laba sawir oo kale inaad isdhex geliso kale, frame tool aad iyo aad ay u sahlan tahay inaad intaba ku sameyso. marka waxaad ka soo dooran kartaa dhanka keyboard-ka adigoo taabanayo K. wuxuu leeyahay option bar. these are option bars. marka shape-ka aad doonayso in aad frame tool ku sameyso ma ellipse ama rectangle. marka ugu horreyn waxaad soo dooranaysaa shape-ka aad doonayso inuu ku qabto frame tool. marka haddii aan rabno in rectangle inuu noo qabto waa soo dooranayna. sidoo kale haddii aan doonayno ellipse inuu noo qabto. marka had iyo jeer shape-ka aad doonayso inaad sawirkaaga ka dhigto adigoo isticmaalayo frame tool ayaad soo dooranaysaa. marka anaga haatan waxaa inoo dooran oo aan soo dooranay ellipse. kadib marka waxaan imaanaynaa dhanka sawirka, click and drag. inta kadib waa sii daynaynaa. marka waxaan isku dayaynaa qaybta kore inaan la ekeysiino. inta kadib waxaan ku laabanayna dhanka layerska. waxaan tagaynaa picture layer. marka bisadaan aan rabnaa marka inaan qaybta shaax inaan saarno kore, layerkii ku fadhido ayaan active garaynaynaa. Control T. kadib waxaan isku dayaynaa inaan soo yareyno. move tool soo active garay. sawirka layerkiisa waxaad dhihi kartaa drag and drop adigoo markaasito drop ku siinayo frame layer. transform scale oo ah soo weynay sawirka ama yaree. enter. inta kadib waxaan leenahay qaybtan ay ku qoran tahay is normal waa qaybta moodka. waxaa ku leedahay multiply. dabcan frame tool waan isla fahnay. frame tool waxaa loo isticmaalaa in markaasito sawirka aad doonayso, tusaale ahaan haddii aad u rabto kale in sawirkaaga afar gees oo kale inaad soo yareyso kale ama inaad ka dhigto kawaawin oo kale. marka waxaa isticmaalaysaa si simple waxaa u isticmaali kartaa this tool, frame tool aad u isticmaali kartaa. markaas isagoo markaas awood u leh sawirkaaga hadbo rectangle ama ellipse labadooda midkaa doonto inaad ka dhigan karto. frame tool halkaas haddii aan ugu gudubno, toolka inuu xigo waxaa waaye eyedropper tool waa this tool. marka dabcan this tool waxa lagu talagalay sawirkaaga color-ka uu leeyahay inaad micnaha ku soo doorato. marka dabcan sawir kastaba laba color ayuu leeyahay, foreground color and background color. marka foreground color waa object-ka sawirka ka muuqdo, background color waa color-ka qaybta dambe oo sawirka leeyahay. marka labadaba waxaa matalo qaybtaanito aad u jeedaan. marka buluuga waa foreground color, qaybta dambena waxaa waaye background color. tusaale ahaan inta badan markaa ku shaqeynayso kale brush tool kale markaa ku shaqeynayso
ama marka aad rabto kale sawirkaaga colorkiisa oo kale inaad save garaysato waxaad isticmaalaysaa iRoba tool isticmaalaysaa. Marka toolkan waxaan isku dayaynaa inaan isaga iyo brush tool inaan la sameeyno marka aan soo gaarno brush tool. Marka waxaan ka hormarnaynaa healing brush tools. Healing brush tools waa brush loogu talagalay sawirka qaybo ka mid ah in lagu remove gareeyo. Tusaale ahaan haddii sawirka ka shaqeynayso kale objectiyo ama sheeyo aan habboonayn ay dhex yeelaan si fudud ayaad sheeyadaasi sawirka uga dhex bixin kartaa adoo isticmaalayo healing brush tool. Marka waxaan ku hormarnaa spot healing brush tool. kadib waxaan soo dooranaynaa sawirka aan doonayno inaan ku sameyno. inta kalena marka waan iska qarinaynaa. sawirkan aan ku sameynay frame tool dabcan waan iska qarinaynaa. sidoo kale sawirkan isagana waan qarinaynaa. waxaan u imaanaynaa this picture sawirkaanito. wareen marka inta aan move gareynin sawirka waxaan isku daynaa inaan duplicate ku sameyno si aan marka aan isbedel ku sameyno aan barbardhig ugu sameyno. Ctrl J waxaan ku sameynay duplicate. marka mid kamid aan iska qarinaynaa. marka waxaan doonaynaa wiilkii badda si gelayo inaan sawirka ka saarno. toolkaanito kaliya objectiga aad doonayso ama sheyga aad doonayso sawirka ku dhex jiro ayaad highlight ku saaraysaa. isla markiiba Photoshopka waxay sameynaysaa analyzing oo ay ku sameynayso dhammaan qaybaha kala duwan sawirka iyadoo isla markaasito ka saarayso qaybta highlight kala saaray. marka haddii aad doonayso inaan brush ka yareyn oo kale waxaan keyboard ka soo dooranaynaa left bracket. sidoo kale haddii aad doonayso inaan weyneyn oo kale keyboard waxaan ka soo dooranaynaa right bracket. left and right bracket labadaba markaa soo dooranayso wax control ama shift waxyaaba noocaas oo kale ma raacinaysid si toos ayaad usoo dooranaysaa. brushkan wuxuu leeyahay option bar dabcan waa qaybtan kore. marka tab listkanito waxaa haatan active noo saaran content aware active noo saaran. marka content aware waxa uu ilaalinayaa sawirka. macnaha haddii sheyga move-ka aad ku sameysay meeshii laga qaaday emailihii kale hadii jeer marka wuxuu isku dayayaa in ay noqdaan wax isla siman. inta kadib marka waxaan qabanaynaa right click qaybaha aan doonayno markaasito ayaan highlight saaraynaa si loo remove gareeyo. qaybta kale horte boom saa ujeedaan simply macnaha si fudud ayay Photoshopka macnaha sawirka isaga ku aqoonsatay si fudud ayay ku qaaday marka iyadoo aysan sawirka ku sameynin wax saameyn. haatan dabcan sida sawirkan noogu muuqato there is no saameyn. isma dhahay sawirkan waxba si ka ah ama waxba ka maqan. marka haddii aan ku laabano dhanka lyrics-ka oo isku sameyno isbarbardhig before dabcan horta sawirkan inaan horumarino qasab waa kana horumarina before and after saameynta soo gudbaan. okay haddii aan healing brush tool halkan oo gudubno dabcan waxaan u tagaynaa sidoo kale qaybta aan joogno waxay ahayd brush aan ku shaqeynay spot healing brush tool. marka haatan marka waxaan u imanaynaa healing brush tool dabcan wuxuu la shaqeynayaa alt automatic ma ahan waa manual waa. adaa marka hore qayb sawirka kamid ah macnaha dooranaysaa adigoo markaasito la qabanayo alt. marka ugu horeyn sawirka aan doonayno aan ku sameyno ayaan soo dooranaynaa ama sidoo kale waxaan ku sameyn karnaa sida sawirka isaga ah ku sameynaa. marka tusaale ahaan haddii qayb yar sawirka kamid oo kale aad doonaysa in aad qariso ayaad u isticmaali kartaa healing brush tool. waxaa leedahay alt kadib click qaybaha kale aad doonaysa inaad ku qariso ayaad kor imaanaysaa waxaa leedahay click. marka spot brush tool and healing brush tool way kala duwan yihiin. marka isticmaalayso spot brush tool oo kale waxaa sameynaysaa highlight sameynaysaa. marka objectiga aad doonayso in sawirka laga dhex bixiyo ayaad highlight ku sameynaysaa isla markiiba si automatic ah Photoshopka ayaa qaybta aad highlight ka saartay qaadayso sawirka qaadayso. sidoo kale healing brush tool marka isticmaalayso kale iyadana qayb sawirkaaga kamid ah
ayaad si manual ah u copy garaynaysaa adigoo markaas isticmaalayo alt adoo la qabanayo healing brush tool alt kadib markaa koobiyeyso qaybta kale oo aad doonaysana ku qariso ayaad kortagaysaa waxaa leedahay click on. haddii aan labadaas qayb halkaas oga baxno sidoo kale waxaan u tagaynaa batch tool. batch tool waa free selection qayb sawirka kamid ah aad waxaan ku sameynaysaa selection ku sameynaysaa kadib waa soo jiidaysaa qaybta kale oo macnaha sawirka kamid ah ayaad keenaysaa marka oo aad doonayso inaad ku qariso kale. tusaale ahaan waan ka hor dhacnay waxaan leenahay control z. marka hore qaybta aad doonayso sawirka kamid ah in aad qariso ayaad kusoo select garaynaysaa. markaad soo select garayso marka hore layerka ayaan active garanaynaa. inta kadib waxaan leedahay click then drag. waxaad sameynaysaa click and drag. marka batch tool signature-kiisa qaabkaas ayuu u shaqeeyaa. marka control D. haddii aan spot healing brush and batch tool halkaan ugu gudubno waxaan u gudagelaynaa brush tool. okay waxaan soo dooranaa sawirka aan doonayno inaan ku sameyno kan kalena waan iska qarinaynaa. marka haatan marka waxaan doonayno inaan ku shaqeyno aan isla fahanno brush tool iyo qaabku u shaqeeyo. haddii jeer marka sawirka ku shaqeynayso layerkiisa waa inuu active ku ahaado si brush toolka uu u shaqeeyo aadna ugu shaqeyso. marka inta aan brush tool ku shaqeynin waxaan doonayaa in eyedropper tool aan ku soo doorto color kamid ah sawirka aan ku shaqeynayno. marka waxaan leenahay alt isla markaa wuxuu noo geenayaa eyedropper tool. this is eyedropper tool. marka colorka meesha aan ka soo dooranayno waa sawirka aan ku shaqeynayno. sidoo kale qaybta aan u dooranayno waa foreground color. qaybta aan rabno in aan color ahaan u soo doorano ayaan geenaynaa muuska kadib waxaan leenahay click automatic. marka foreground ayaan haatan ku soo dooranay. marka eyedropper tool qaabkaasito ayuu isagana u shaqeeyaa. haatan marka waxaan joognaa brush tool. marka brush tool waxaa loo isticmaalaa painting in wax lagu kalarayo ama color lagu bedelo. qaybta loofka noo muuqato inaan color kale ku bedelno waxaa inoo dooran brush tool. option ba hadda isla tagno opacity-giisa waxaa waa 63 waxaan ka dhigaynaa 90. sidoo kale haddii aan dhahno right click waxaan heli karnaa qaybaha uu ka kooban yahay brush tool. dabcan hadda qaybtan soft round markaad wax ku paint garaynayso waa soft. tusaale ahaan this is the soft saa u jeedaan waa soft. ma ahan micnaha color xoogan ma ahan waa color dhinacyadiisa uu khafiif ku jiro. waxaan leenahay right click. haddii aan soo doorano hard round dhinacyada brushka ma noqonayo soft ma noqonayo. marka saa u jeedaan there is no soft wax soft ma lahan. waxaan leenahay control Z. waxaan soo dooranaa soft round kadib waxaan imanaynaa foreground. waxaan dooranaynaa colorka aan doonayno inaan painting ku sameyno kale. marka waxaan tagaynaa this option bar kadib waxaan soo dooranaynaa color. kadib waxaa leedahay painting. marka qaybta aad doonayso inaad ku paint garayso ayaad muuska la raacaysaa. that's all. marka color ayaan waxaan ku bedelnay color kale anagoo isticmaalayno brush tool. dabcan brush tool awoodo fara badan uu leeyahay waxyaabo fara badan uu ku qaban karaa. tusaale ahaan waxaan kaloo ku sameyn karnaa trick kale. waxaan ku laabanaynaa dhanka layerska. waxaan active garaynaynaa this picture sawirkan kadib waxaan imaanaynaa foreground color. wuxuu joogaa foreground color. waxaa ku leedahay click. okay qaybta aan doonayno in aan black madow inaan ka dhigno kale sawirka kamid ah ayaan brush ku paint garaynaynaa. marka so simple. marka inta aad doonayso ayaad paint garayn kartaa inta kalena oo sawirka kamid ah sidooda ayaad ku dhaafi kartaa. haddii aan control Z waxaan ku soo laabanaynaa layerska. waxaad tegaysaa layer mask. waxaa ku leedahay click intaadan dhihin
waxaan qabanaynaa alt kadib waxaan leenahay click boom sawirka meesha ka baxay okay control z add layer mask waxaa ku leedahay click kadib waxaa leedahay control I oo isla meesha laba dhinac waa samayn kartaa mid ka doonto haatan marka waxaa foreground inoo dooran black waxaa ka dhigaysaa white brush opacity-ga waa 90 dabcan opacity-ga waa xaddiga soo muuqashada sawirka marka opacity waxaan ka dhigaynaa 50 ama 54 it's okay waxaa qabanaysaa marka left click kadib waxaa samaynaysaa dragging marka qaybaha marka aad doonayso inuu shabeelka ka soo muuqdo ama uu sawirka kale ka soo muuqdo kale ayaa sawirka kale qaybihiisa ku jiidaysaa marka one click ayaan sameeyay ilaa haatan marka one click ayaan wadaa oo aan dragging ku sameynayo this one clicktan aan horay u soo qabtay ilaa haatanna aan dragging ku sameynayo haddii aan sii dayo oo mar labaad aan soo qabto xaddiga muuqashada way soo kordhaysaa mina tusaale halkan kale waa sii daanaya kadibna waa qabanaya marka dragging aan sameynaa that's all sa ujeedaan waxaan ku laabanaynaa foreground waxaan leenahay click on waxaan u bedelaynaa black okay marka foreground markuu black taagan yahay sawirka hore oo aan soo muujinay wuxuu ku sameynayaa tirtiris sa ujeedaan control z sidoo kale haddii aan white ka dhignana waxay noqonaysaa soo muujin that's all isla fahnaa tusmadii aad kugu soo talangalan intaas ayay ku dhaantahay dabcan tusmooyinkii aan soo mareynay waxay ahayd tusmadii ugu cajiibka badneed tools fara badan oo marka photoshop ka mid ah insha Allah way noo dhiman yihiin marka aan hadda jeer marka waxaan xoogga saaraa inaan marka hore aan isla faahno toolska photoshop ka leedahay waayo sababtoo ah waxaan ogahay qofku macnaha fahmo toolska photoshop ka leedahay in photoshop wax kasta laga dhex sameynayo ay u sahlan tahay tan iyo cashir kale ku saabsan toolska photoshop ka leedahay waxaan idinkaga tagay oo idin leeyahay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabadino